koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaada reer kalamaan waxaa la yidhi tare aarsad iibsaan lahaa geyrku ayd yahaye wax kaloo la darandooriyaa damac ma yeeshaane been sheegi maayee wakhtigu waysbeddelayaaye imaaraad waxaa nooga daran awrkiraalaha geyrgeyradkooday rabaan ciday galaaftaane dawladnimo iyo rabitaan qofeed laysku rari waaye intaasaa ku soo koobaya ayaanan sii badine ha midowda soomaalidii kala maqnayd weeye waa lagu waay war ninkaasi ma fiyoobe waxaa la yidhi nin siyaasad xumi waa inuu sixir yaqaannaa waa inuu bulshada kala siraa kalana soocaa waa inuu siduu doono fala ama sameeya aryaa qumaya intaadan qumaya dhihinay adiga ku dhahdaahaan maqli jiree waxaan adigu hadda aad sheegayso ma fayaabiyaad ku tiri horaa waxaa loo yidhi siixun waa usheeg saaxir waa ka daran yahay warnimiyoon weliba dheegi jiray sihirey so'oo warya iyana mayle tagasaasheed maaley sabro maaley sabro kata war waxaa la yidhi saddex waa u daran tahay socdaal bil saddexa ku dheelmo waa u daran tahay marwo suura taqaana saddexdaadii baad qabtaa waa u daran tahay baqaylna su'aasha iyo isiidu waa u daran tahaa la yidhi saddex nambar saddex sideed eber sagaalka goy soddonka soodkayga maruuhaaya soomaaliyey maqal war arrintu saddex ay maraysaa inaga dhegaysta warka saddex madaxweyne waa kuwa ayaantaan muqdisho wada joogay saddexdii ilmaysteedna waa kuwii yidhi waa u wacno waa imaanayaan ha ilaabinahee 3 sanaya barna waa la soo dhaafayoo waa la socotiine may kale intaas ka jirte lamada saaxiib saddexeeyaa kala geeya war arrintu waa saddex leeye si fiican ula socdoona dhegaysta saddexdii ilmo gareenoo la sugaayey maanta baydhabay isugu tageen aw gareenaana casuumay waxaanna ka tashanaynaa ay yidhaahdeen ilmo laan iyo awga casuumay u yeeristooda waxaan ka yeeli lahayn kollaybana aniga waxay ila tahay saddexda inaan taladoodu soconayno suldaan geeddigaaba waa ka dambeeya warnimiyow horta geega farhadday wallaha koobo koraba ma sababtoo baydhawo janaay reer aw gareenga ka shirsan hadda ka hor ogdiin shirkii luusimare madiqaadeen reer aw leeng garowa ka shireen waliil ereena mayba ku taladaane walanoo damboysdiin maamulu fadni marka reer aw gareen hoob yoono geeka koljo leeyin sidun ku weelalahayni kaartidii dognay ana farhadday wallaha koobo koro ma wasingari warnimaya horta ilma isteed aniga ogo wax ma diidi karaan xoogaa waa isgeejinayaan maahane laakiin anigu waxaan kula talin lahay bal inay xayi iska dhigaanoo rag talada wax ku leh noqdaan war saddexda madaxweyne baydhabo ku shirsan horta maalmo waa inay isku daayaan meesha kadibna waddooyinka muqdisho u xiraadaan muddo 7 ah kadibna oo mid walba ka soo duulaa isteedlaankiisa war ma ahan sidaase saddexda ilma isteed markay 2 maalmood baydhabo joogaan waa inay u yeertaan labadii ilmo laan kadibna baydhabo isugu tagaan waa in la isweydiiyaa horta madaxweynaha maannagaa u jabnay mase adinkaa u jilcay kadibna wixii la isku raaco ay meesha ka soo baxaan war kalamaanay maalinka caqabadda ummadda ka shaqaynaayo war kama shaqayna annagu caqabade siyaasadda dalkan cabiraynaa arooda saddexda xamar joogto iyo saddexda baydhabo joogto isku miisaan ma ahe dadka asrina ani waxaan la yaabay siyaasad markii la cabiraay mayso kodmi oo hadda saddexda ilmaysteed tala kama goodo miyaa aryaadhaha warkiinaan ku keenay saaxiibkay samigay cabdulle wuxuu yidhi how siyaasaddu 3 miya 30 sana la soo socde siyaasaddu 3 miya 30 sana la soo socde haye war Soomaaliya waxaa jira siyaasiyiin aan munaafiqiin ahayn waxay qabaanna aan qarsan aryaadhaha anigu waxaan un idinka hubaa madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed allah u naxariiste wuxuu qaba inuusan weligii qarsanin war dee faysal cali waraababa wuxuu qaba ma qarsado arooda allah u naxariistee maxamed dheere jawna isla ahayn wax ma qarsan jirin war maxaaji muuse suudiyaa wax qariya war faroole iyo xaafa wax qarinaya xageed ku aragteen war walisin ogdiin ma leh salaad ali jeelabo walaayu isgaba ma qarsada inta aad sheegteen ninka darana soo baxay warka iga dhageysta waa yaabay ma fahad yaasiina hadlaa soo wadaa ma aqaan mindha farmaajo run sheegu soo wada war albaabada xabsiga ha garaacinina warka naga suga war sanbaloosho shalay xaflad
ka hadlayey wuxuu yidhi madaxweyne daniyow ka soo qaad garoowe oo caasimadda soomaaliya ah haddii madaxweynuhu reer kale yahay ra'iisul wasaare uusan jirin wasiirka maaliyaddu cid kale yahay taliyaha booliisku cid kale yahay maamulka dhan aan beesha meesha degano aysan waxba ku lahayn canshuur 100% laga qaado waddooyinkana laga xidho ardadoodana imtixaanka lagu daadiyo qarax iyo aflagaadana u dheer tahay ilaa aan kugu dhaarshay daniyow muu dul qaada lahaydeen war madaxweyne dani mayn arwaay aayihiina maa ka tashataaniin war madaxweyne axmed madoobe wuxuu yidhi af ama lo ha ku daaqda ama sanbaloolsha ku hadlo war madaxweyne daniyo maanta shir jaraa'id qabtay wuxuu yidhi imtixaankii puntland baa diidayna la ku eedayn jiray waxaan ku diidaynay maanta reer muqdisho waa hayaan arooda dani waxaas yidhi siyaasaddan habeenka madow lala dheelmanaayo maalinta cad hala la soo fadhiisto war dani wuxuu yidhi siyaasadda lala dheelmada haddii la joojiyo dhegdheer iyo dhegay shaqola'aanay noqonayaan war senatar dhegdheer wuxuu yidhi madaxweynayaasha waxaan kula talinayaa markay shirka muqdisho dhammaystaan in dhuusamareeb lagu soo xidho heshiiska sababtoo ah weli gogashii dhuusamareeb waa furan tahay geeliina waa daaqayaan loo diyaarshay kaali dhegdheer maku war haay miyaa dhuusamareeb magaagii haa inoo rajay li bedelay samareeb lembii aryaadhaha axmed madoobe wuxuu yidhi eegga shirku inuu muqdisho ka dhaco way fiican tahay sababtoo ah dhuusamareeb ma joogin haddii laysqabsado adeeryaashina kala celi lahaay laakiin muqdisho abtiyaal iyo adeerayaalba waa ku dhan yihiin anigu sarbeebta axmed madoobe waxaan u fahmay beesha lixaad oo xalana fadhida yaanaan ka fogaanin horaan waxaa loo yidhi ilma adeer aan isku uur ahaynin ma iidaysan karaan marka in la kala celiya waa muhiim warnimay war ma haysiine wasiirka arrimaha gudaha dalka liibiya ma magafayaashu ku biiray war tahriibayaal soomaaliya miyaa u xidhxiran war ciidankii jenaraal xaftar sheegaya soomaalida ahaa miyuu beeniyey wareedhaaya warka waa ku hor orodaane naga suga wasiirka maalin hore waxaa lagu eedeeyey bannaanbax dawladda looga soo hor jeedo inuu ka qayb qaatay weliba inqilaab uu isku dayay baa la yidhi kadibna asagoo warbaahinta la hadlay madaxweynuhu dhaliilay kadibna si ku meel gaara ayaa shaqadii looga joojiyey 3 beri ka horna kulan golaha wasiiradaha looga yeedhay kadibna su'aalaha la weydiiyey isaguna si runuhu uga jawaabay dhaliisha uu qabana waa sheegay wuxuuna raaciyey wixii dhacay inuu ka cudur daaranayo taasoo afki ba'a yidhi tubti waa karyaa ahaa intaasi markay dhacday kadib xilkiisii waa lagu soo celiyey wasiirkii marka madaxweyne farmaajo haddii wakhtigiina dheeraaday ilaa haddana ra'iisul wasaare soo waayey inuu liibiya ku daysado khayre soo celiyo maxaa ku jaban war khayre haddii la soo celinayo waa inuu raalligelin ka bixiyaa doorashadu wakhtigeeday ku dhace hogaa taas haddii raalligelin laga baxsho carraba'daye war madaxweyne farmaajo haddii khayraha nagaw inuu hoos ka hormariyi waaye oo lata xasanow dirowka eedaa inka koyte yaahu waxaan maqli jiray muxubba muuna beeshaye mooshinkeed waa la moodaye war cabdullah waxaa kaloo maqli jiray dagaalkii mixnada midda mooshinka ka macaana wadaa wax lisweyddiiye maxamed xaydar iyo tuuriyana maanta muraadkooda yaa yaqaano horaan waxaa loo yidhi muxibbu waa micni gooy macriifna meed kuma facna marka macriifadaa ku mashquulina war ma haysiine xalay balcad waxaa soo weeraray shabaab muddo koobanna magaaladii inta badan waa ku qabsadeenaa la yidhi marka waxaan la yaabanahay haddii balcad iyo afgooyo shabaab fakfakad u yihiin inay qabsadaan madaxweynihiina kursiga inuu sii haya fakfakad u yahay sida wax la yeeli doono warnimayow dadka balcad joogaa ma dadka bacadweyne joogay ka tabar yar yihiin ma iska celiyaan shabaab hadday dawlad difaacda waaye war haddii ciidan dawladeed oo balcad difaaca la waayey amisom maa degana xay qabanaysay war walaalaha aan tukan habeenkii waa seexdaan war allah u naxariistay hadda koor abshir bacalle wuxuu yidhi sidii jin jaawi loo shidaa ku dhex jir juuniyaal carraa marka walaalaha aan tukan juunigooda kama baxan war maxaa calikaariye wuxuu yidhi allah u naxariistee gaashaanqaad habaabiyo gulufow dhul kuu siman gurmadkaygu weeye goormaan socdaa xaggee gaari karaya marka ciidankii soomaalidu hadday waajibkoodii gabeen walaalaha aan dukan miyaa kala yaqaan meel looga yimid iyo cidda socotaa waxay tahay anigu afaaraha ciidanka ma galeen waxaa kaloo la yidhi gabadhii nasiibkeeda iyo calafku naafeeyey gabadhii nabsiga haysta iyo beentu nacasaysay gabadhii nimcada eebbe iyo naaxiyaha laacday
ee haddana inay neefsatiyo nolosha loo diiday gabadhii qalqigu naadiyey quruxda nuuraysay ee haddana ragoo dhammi nacee qoyska noqon weyday gabadhii naxliga diidday ee raacday nebigeeda ee haddana nidaamkiyo sharciga lagala soo noogay gabadhii naruurada cirkiyo aragtay neecawda ee haddana naqiyo doogii baxay lagu negayn waayey inkastoo inugulaato wejiga naabi kaga tiilay doobkayna siinada bidoo siisay nolosheeda mar hadduu nusqaan geliyey oo labadii naas gooyey iska kay furbay tiri nin kale hay ninkaaxsado warwar ma haysin ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Guuleed dekadii eelbaarka miyuu tagay arooda wasaaradda maaliyadda miyaas tagayne bangiga dhacamas kormeeray wasiirra shirka ka soo dahay miyuu baxa yidhi wasiirkii amniga wasiirkii arrimaha gudaha wasiirkii boostada shirka golaha wasiirada horta ma ka qayb galaan warwarka waa daga dhex gasheene Mahdi Guuleed maanta wuxuu kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha Puntland Siciid Deni hadda waxay ka wada hadleen iska sii fahmay tukaraq ma ka wada hadleen war xilka ra'iisul wasaaraha inaan sii hayo madaxweynuhu iyo ogolaaw miyuu yidhi war Mahdi Guuleed iyo golihiisa wasiiradu waxay magacaabeen guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa aryaadaha dadka siyaasadda falanqeeya waxay leeyihiin inaan dawladan sharci yahayn uu wax magacaawdaaba musuqmaasuq koow ka ah war waxaan la yaabay wasiirka cadaaladda oo af Soomaaligu dhib ku yahay baa akhriyay liiska guddigaas magacyadooda qof kastoo magaciisa sheegana wuxuu ku sheegay qabiir haddana mid Soomaalidu taqaan kuma jirin quburadan cusub xagee ka timid aryaadaha kaasoo af Soomaaliga inuu si fiican u aqaaninaaba musuqmaasuqa war guddigan waxa loogu talagalay la yiri dadka doorashada looga baqayo xilka madaxweynaha inay musuqmaasuq ku soo eedeeyaan la rabaa maada soo eedeey karo xili karo war yaa beena sheegaysi labadiinaba war dagaalka joojiya iimaanka Allah idin galshay wardin nala taga taladiin ha tooste